anigu magaalo waxaan ka bilaabay magaalada la yiraahdo Beledweyne waxa macallin dugsi iyo macallin masaajid oo waaweyn iyo macallin iskools intaba waan kula kulmay midba midka kale iga fiicnaa dib markaan u soo ogaaday midna reer Beledweyne ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad magaalada xurmo ku leh oo runtii qof kasta ilaa maanta tan magacoodii hayo waxa keenay wixii ay dadka barahayeen siday wax u barahayeen aabayaal bay ahaayeen dad tarbiyeeyay ahaayeen dadka midkii aniga elementary 1 galaaska ii bilaabay wuxuu ahaa Eritrea marda baan ogaanaya waaga Eritrea jiritaankeedaba ma garanaynin waxaan ku farxaynaan anoo jaamacadda madax ka ah asagii aan ku arko oo ilmihiisa wala asagu ma dhiganayna waa uu ka aqoon fiicnaa marka hal baan leeyahay horta jaamacadda tayadeeda in aad iyo aad loo fiiriyo ayna noqon barakooyinka la iska wada furto ama daari waaweynaa sheegaysay laakiin nuxur usan ku jirin waxaa cariish yar oo wax nuxur lagu dhigayaa ka faa'iido badan mid kale aan ku talaa waxa weeye waqaf inayna noqonin waqaf erayga dadku mooda garanayo ya waxa weeye waxa waqafka ninna male nin ka naxana male nin u daneeyana male ya waxa weeye inayna waqaf noqonin mid kale waxa weeye jaamacadda Galguduud baa la yidhi Galguduud waa yadhaxa barta inta ay la egtahay iyo meelo ku jira qaarkood reebaydaba iyo wala saasku qaraawada reebaydaba iyo xawru baan aha magar waxa weeye inay jaamacad noqoto jaamacad reer Galguduud oo dhan iyo jaamacad Soomaaliyeed inay noqoto taas waxay u baahan tahay anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ku magacaabay extraterritoriality jaamacadda tanu waa in aan dadka caabudu waa laga sameeyaa maqlayaa ayna caabudu aqdeen annaka ale jaamacadda iyada waa in ay noqoto jaamacad runtii ha waa in mataqaan ay noqoto anigu meelihii waqti hore oo ku celceliyaaraygaala midna baydha baan joogi jiray xamar baan joogi jiray weligay ya Galguduud nin la dhaho madax ka noqdo isku galaas baan ahay ya weligay ma dareemin inay meel kale tahay ya waxa weeye jaamacadaas waa in intaas waxa kaloo ku xiran tayada jaamacadda si loo wanaajiyo oo hadda aan ka gartay in dhalinyaradu wado waa in dugsiyada sare wanaagsanaadaan hadda foundation baa la sameynayaa aadan yiri waa wax fiican waa integration wixii dugsiga hoose ka qabyan noqday waxaan ku tijaabinay oo runtii anigu aan macallinka ah anoo hormuuda ayna shaqada ahayn foundation dhalinyaradii naloo soo geliyay aftalyaanigaa la bari jiray inaan maadooyinka asaasiga ah aan wax ka barno inta foundationka ay ku jiraan ya foundation ma dhihi taas luqad baa la dhihi jiray ya laakiin inaan barro waxyaabaha asaasiga u ah sida xisaabta physics-ka mathka oo meel kastoo galayaan asaasiga u ah in foundationka oo ayna ka maqnayn dugsiyada sare laftigooda in dib loogu noqdo oo sidii wax loogu tari lahaa si arda fiican heerkii jaamacadda u soo gaarto waxaan intaa ku darayaayo dooda halka aan ku fiican khudbooyin kuma fiicni in muxuu ahaa jaamacadda tan aniga nasiib wanaag dhowr jaamacadood oo Soomaali baan qaaraa ka bixiyo runtii Hargeysa ugu horeysay waa kuwa aan ila kulmin ana chance weeli inaan wax ka bixiyo midna waa jiraan waa badan yihiin laakiin meel kasta oo Soomaaliya wax laga baranayo waxa weeye la dagaalanka يعني la dagaalanka jahligu waa la dagaalanka kala qaybinta iyo kala taga iyo dagaalada